سلام الله عليكم تعالى وبركاته إدلانتين با قرانتي وناكسن dhageystayaasha qiimaha iyo qaayaha badanow meel kastoo aad dunida ka joogtaan ba dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan sheeko cajiib ah oo dhaxmartay lamaano Soomaaliyeed sheekadani ayaa waxay dhaxmartay Faysal iyo Xaliima haddaba sheekadaasi waxa inoo akhrinaya saaxiibkii Cabdifitaax Baadidoon dhageysi wacan Faysal waa wiil aad u daayar isla markaana degan magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka Talyaaniga wuxuuna booqasho gaaban ku tagay magaalo ka mid ah dalka Sweden isla markaana xilli uu magaaladaasi ku sugnaay ayuu waxa uu helay casuumaad in uu ka soo qayb galo aroos ka dhacay magaalada Stockholm xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Ringiby isla markaana waxa uu Faysal kula kulmay gabar aad u daayar oo magaceeda ugu sheegtay xilligaasi Xaliimo ayuu Faysal ayaa waxa uu weydiiyay Xaliimo barasho iyo bogaadin kadib in ay leedahay aaladda loo yaqaan Facebook Xaliimo ayaa ku jawaabtay walaal ma isticmaalo Facebook mana aqaano wax la yiraahdo Facebook Faysal ayaa kula dardaarmay in ay Xaliimo soo furato waxa loo yaqaano social network amaba Facebook فتنا تكليجين فقدت كبوغني صفرو وسيد يدا هذا الكافرور مو فكذا لعلني فقرر مقال كيو فيسبوك صورة intaasi kadib Xaliimo waxa ay deganeyd magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway iyadoo sidoo kale tana sida Faysal ku joogtay booqasho dalka Sweden si ay uga qayb gasho arooskaasi ka socday Xaliimo waxa ay isku dayday in ay ciwaan ku yeelato aaladda Facebook waa ayna ku guuleysatay oo waa ay samaysatay in muddo ah markii la wada xiriiray Xaliimo iyo Faysal ayaa Xaliimo waxa ay ku jawaabtay erayadan Faysal jacaylkiisii ugu horeeyay markii uu ku hingoobay ayuu waxa uu go'aansaday in uuna la hasaawin gabar dambe oo Soomaaliyeed oo ay ku kala nool yihiin laba dal isagoo baadigoob ugu jira iminka gabar kula nool dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalo kasta uu xilligaasi ku sugan yahay ayuu Faysal go'aankiisii ka miro dhaliyay waxauna helay gabar kaleeto oo uu la hasaaway isla markaana uu ku guuleystay in uu guursado 2 isbuuc ka hor ayuuna Faysal ku aqal galay magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Talyaaniga hase ahaatee Faysal ayaa xilliyada qaarkood waxa uu kula dardaarmaa wiil walba oo Soomaaliyeed ee jecel in uu guursado amaba uu la hasaawo gabar kaleeto in ay ku haboon tahay ay isku magaalo degan yihiin amaba ay isku dal joogaan maadaama isagii uu la soo daristay xaalad murug iyo anfariir fara badan hase yeeshee iminka uu ka bogsaday kana booday uuna helay lamaana kaleeto kuna faraxsan yahay noloshiisii isagoo dhalinyarada badan oo guurdoon ah kula dardaarmay in ay raadsadaan gabar waliba oo la joogta dalka ay ku nool yihiin ha ku noolaadaan wadamada reer galbeedka amaba dalkii hooyo si kastaba ha ahaatee Faysal markii uu qisadani ka sheekaynayo amaba aad wax ka weydiisid ayaad ka dareemaysaa murugada indhihiisa ka muuqato isaga uu yiraahday barta Facebookana u bixiyay waa barihii amaba waa bartii kala fogeyso lamaanaha isjecel isla markaana duruufta ay u saamixin in ay isguursadaan hase yeeshee waxa badan lamaana Soomaaliyeed oo ka aflahay Facebook isla markaana isu guursaday haddii Rabbi idmana waxaanu idin soo gudbin doonaa lamaana Soomaaliyeed
uu ka aflaxay barta facebooka ah iyo shakhsiyaad fara badan oo iyagana ka sheekaynaya in ay ka aflaxeen facebooka oo ay gabdho ay ka barteen Soomaaliyeed isu guursadeen dalal ay ka mid yihiin dalka Sweden, Norway iyo Denmark. hase yeeshee sheekadani gaabneed ayaynu ku soo afjaraynaa halkaasi. waxaan idinla socodsiinayay isla markaana soo aruuriyay Cabdi Fataax Cali Baadidoon.